maanta oo ay ku beegan tahay 12 bisha Abriil waxay ku asteesan tahay 60 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inkastoo maanta dalka aysan ka jirin wax dabaaldeg ah cabsi laga qabo caabuqa COVID-19 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay saraakiil xigeenada dableyda alifleyda dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay bishu tahay 12 Abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan doonayo inaan halkan uga hambaliyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay kale u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabadiidka waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen deegaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateyn jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahad celiyo Allahina khalqay marka labaadna ciidanka geesiyaasha ah ee u nafwaayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiraba leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir ma aha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxay arintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalaan dalkeena insha Allah waqti aan fogeyn Soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qarannimo higsigeena qarannimo waxaa ka mid ah in la helo Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo nabad ah xorna u ah danaheeda qaran ciidanka xoogga waxa uu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qarannimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan ujeedooyinkaas qaran ee sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celinayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto inaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba aan ka codsado inay taageeraan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliyeed sidii caado ahayd waxaa maanta oo kale la samayn jiray dabaaldeg lagu maamuuso ama lagu xuso ama lagu weyneeyo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 Abriil laakiin nasiib darro waxaa dabaaldegan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay xilligan oo kale meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan waxaa laga xusi jiray sanad guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse maanta lama xusin sabab la xiriira cabsi laga qabo isku imaanshada iyadoo laga fogaanayo caabuqa COVID-19 kaas oo dunida faraba aan ku haya deeq macallin Jino JK